نقدر اسمع ديار متى سيدو يلا ما يصطاد يا صار نلف كذا هاي اوكي ما بلا وانا دياروي سيدا قريبا بالله تصدق حسنا يرقص ثاني حاجه وري عبد المالك موسى علدون يا مانتا محكمة gobolka Murudijeex waxay sheegtay in wax dambiye lagu waayay in kasto xiraalintu ay rafcaan ka qaadatay go'aankaasi hadaba gariiqaanka u doodaya عبد المالك موسى علدون oo lagu magacaabo Jamaal Mandela ayaa goordhow halkan warbaahinta kula hadli doona عبد المالك موسى علدون waxa lagu celiyay xabsiga maadaama oo ay rafcaan ka qaadatay xiraalintu hadda ayuu gariiqaanku bilaabayaa hadalkiisa بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay taariikhdu 3 bisha labaad 2022 waxaan halkan idinku yeedhnay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka Murudijeex waxay soo saartay Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo ahayd saaka ay maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyay ee dacwadiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay dacwadaasi oo muddo soo socotay Cabdi Maalik waxa la xidhay bishii 8aad ee 2021 dacwadaasi ilaa maalintaas soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambaysta waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday isla markaana ay xorriyadiisa u celisay runtii go'aankaasi waa go'aan cadaaladeed waa go'aan aan soo dhaweynayno waa go'aan aan in badan ka dhul sugaynay qof kasta oo dacwadda Cabdi Maalik daneynayna saaka waxaan u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed waxaana ku dhawaaqday dambiyadii loo haystay in lagu waayay Cabdi Maalik Muuse Culdoon waxa lagu soo eedeeyay 5 eedood shantii eedood ba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 110 heerka habka ciqaabta way ku guul daraysteen inay maxkamadda horteeda ka cadeeyaan inuu Cabdi Maalik galay oo dambiyadaasi ay ku soo eedeeyeen wax cadeeyna maxkamadda way horkeeni kari waayeen runtii dhinacayaga waxyaabihi ay isu keeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiriibkii u dambeeyay oo Cabdi Maalik Muuse Culdoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku durayay tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso duritaankaasi Cabdi Maalik wax dambiye muu sheegin laakiin waxa uu sheegay hal shay oo kaliya ayuu ku soo ururiyay duritaankiisaasi oo ahaa yaani tigitaan mar madaxweynuhu tagay waxyaabaha uu Cabdi Maalik sheegayay abaarso aba dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariyo aanay hayn oo aanay waxay tusay taabsiye ahayd waxyaabo macnawiya waxaan clipkaasi Cabdi Maalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo in baaris dheeriya iyo guddi baarisada culimo ku jirto uun la diro taasina wax dambiye ma ahayd waa codsi uu soo jeediyay madaxweynihiisa qaranka annaguna taasi waxaanu cadeynay inay dambi hayn wax fal dambiyada kale la Cabdi Maalik aanu gelin waxaan ku darayaa maragyadii xafiiska xeeraantu keenay dhammaan waxay ahayd dacwadii 2019 lagu xukumay isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamadda horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay waxaan cadeynay doorka hore wixii maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu kamid ahaayeen waxay qoraallo ka kooban iskuulka ka qoray kamid ahaayeen dhammaan intaas way ahaayeen dacwadii hore ee Cabdi Maalik intii la sii daayay kadib inaan qoraalada mar noocaasa aanu ku qorin dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimanka yaa boggiisa ku qoraya taasi anu ma naqaano Cabdi Maalik hadda wuu xiran yahay
cidda ku qoraysaana maaha dacwadan cid xidhiidh la leh markaa xukunkaas saas ku soo baxay aad iyo aad baan u faraxsannahay inaan dacwaddaas ku guulaysanay maxkamadduna ay saaka amartay in xorriyaddiisii dib loogu celiyo waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo in xafiiska xeeraawantu markiiba ay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen isla markaana xorriyaddiisii aanu weli wada helin cabdimaalig ee uu sii xidhan yahay taasi sharciyan waa arrin gafa sharciguna wuu mamnuucay waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqda in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo ciddii kale dembi u haysataa racfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco mar labaad waan ku celinaa dhaqankaasi waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeeraalintu caadaystay in qofkii markaa racfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo arrintaasi waanu cambaaraynaa waxaanu leenahay siduu sharcigu dhigayo ummadda somalilan sharcigay tahay inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay ee la yidhaha nabadda ha la ilaaliyo waxa u aasaasa cadaaladda haddii aana cadaaladi jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa waxaanu mar labaad ku baaqaynaa cabdimaalig inuu xorriyaddiisa helo in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay ee ay sheegtay inay ku weyday dembiyadii lagu soo eedeeyey isla markaana ay amartay in xorriyaddiisa loo celiyo aad iyo aad baa umahadsantihin ma jirtaa imika damiin aad ku soo deyn kartaan codoon maadaama ay maxkamaddii gobolka Muruuja fasaxday rafcana laga qaatay sharcigu taasi marka horeba waan sheegay sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xidhi karin wax allaale wuxuu diidaya damaanadii lagu sii daayaana ma jirto laakiin in damaanad lagu sii daayo waxaa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagoo aan damaanad lahayn faraha laga qaado aad baad umahadsan النتيجة نوعية رفعانك حيرلان تقاطع كفلسة والله هو دعوة لبعض أو إلا سيد محكمة دي هوران سكيد دفاع عليه أنا ديارنا هنا سكيد دفاع عنه وحنا مكسي هورنا عيانا ما شفتو لكن وحنا روتينا محكمة لبعضنا إن الجوان كساعة عدالة دون مرة دونتو وهي ودار كيسان محكمة ذو مركز الجوان عدالة حكمان يمركز الجوان عدالة الرأي حكمان قيمها أي كلا الذي ساك براب بالشدة واركيسين ومدة سومال لا نردمي ويسودا ويليسي magacaasna waxa le saaka oo magacaas u gaari yahay maxkamadda sii deysay iyo guud ahaan garsoorka iyo garsoorihii sii daayay waana arrin mar walba muujinaysa mar kasta go'aan noocaas soo baxo waa arrin soo celinaysa haybadii iyo qiimihii uu garsoorku lahaa waayo ummadda Soomaaliland waxa ay ku kala joogtaa ee macnaha u sameeya waa xeerarka in lagu dhaqmo haddii xeerarka lagu dhaqmi waayo waa wax dhiiri geliya in ummaddu sharciga gacanteeda ku qaadato haddii se go'aan cadaalad la helo markasta waa jiritaanka qarannimada Soomaaliland ayay magac iyo maamuus u tahay waxaanay cadeyn u tahay halgankii dheeraa ummadda Soomaaliland u soo gashay inay xorriyaddeeda dib u hesho qiimihii qayb ka mid ah inay haysato kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Mandela oo ah